wasiirada dowladda federaalka ah xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ah gudoomiyaha gobolka Gado gudoomiyaha degmada Garbahare iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha gobolka Gado saraakiisha ciidanka taliyaha ururka iyo taliyaha saldhigga booliska maxaa la yiraahdaa saraakiisha kale ee maxaa la yiraahdaa halkan fadhido taliyihii nabad sugidda oo isaga laftirkiisu fadhiyo iyo dhammaan ururadii bulshada dadweynihii farada badnaa ee saakay 3 saac si u soo istaageen ilaa hadda taagnaa ee qoraxda kuleelka badan u adkaystay iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay soo dhaweyntan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye iyo gudoonka degmada iyo saraakiisha iyo baha saxaafadda hadal waa noo dambeeya insha Allah waa nimid waa iswarsan doonaa dowladda federaalka baan ka soconaa annagoo nimid deegaan doorashadanadii oo isugu jirna wasiiro xubno wasiiro ah iyo xubno xildhibaano ah xubno saraakiil ah insha Allah tacaala sabahan u nimid iyo hawshan u nimidna waan ka wada ragi doonaa insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo dadweynihii Soomaaliyeed ee shacabka reer Gado gaar ahaan magaalada Garbahare ee qiirada wadaninimo muujiyay ee soo dhaweynta iyo calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya lulahayay ee ilaa ay meeshan uga taagnaa maxaa la yiraahdaa oo aanan dhibsanin qoraxdii oo aanan dhibsanin maxaa la yiraahdaa cadceedii farada badneed oo u taagnaa inay dawladoodii maxaa la yiraahdaa u soo banaan baxaan waxaan leeyahay ajri xasanaad Allah ka siiyo annaguna insha Allah waxaan dawladda ka wadnay iyo maxaa la yiraahdaa qorshaha dawladda iyo muxuu ahaa xukuumadda dan qaran qorshaheeda dhammaan waa idinka dharjin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo war gaaban waxaa la yiraahdaa waqti gaaban warkiisa la gaabane hadda waxa weeye waqti kulul warkiisa la gaaban weeye insha Allah dib baan isku soo noqon doonaa waa kala dhargi doonaa waa iswarsan doonaa reer Garbahare waa salaamaya reer Gado dhanna waa salaamaya reer Jubbaland waa salaamaya jamhuuriyadda Soomaaliya waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh